waxaanu maanta gelinkii hore uga kicitinay magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn ceelka Riig ee magaalada Buuhoodle oo hilaadii 5 kiiloomitir kaga beegan dhanka bari magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn anaga u dhabagalana abaaraha iyo biyo la'aanta baasan ee ka jira gobolada dalka gaar ahaan gobolka Cayn waxaana ugu horeyntii socdaalka iyaga ku sii wajahanay wadada loo sii maray ceelka Riig ee magaalada Buuhoodle oo xilligaasi ay sii qulqulayeen dad iyo geel aad u tiro badan oo isla markaas ku sii qulqulaya ceelka Riig ee magaalada Buuhoodle iyo waliba qaybo kamid ah dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaalada Buuhoodle oo iyagu ka soo socda ceelka Riig ee magaalada Buuhoodle asi kastaba abaarahan ka jira deegaanka Buuhoodle xarunta gobolka Cayn ayaa ku soo beegmaysa xilli abaaro iyo biyo la'aan baasan ay ka jiraan magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn waxaana guud ahaan iyo gabi ahaanba laga dareemayaa bartamaha magaalada Buuhoodle goobaha ganacsiga iyo waliba meheradaha sida tooska ay ugu shaqeeya biyo la'aan iyo waliba iyadoo laga dareemayo waxaan ugu horeyntiina ku bilownay socdaalka iyagii sida tan ku aadanaa inaan u dhabagalno abaaraha baasan ee ka jira gobolka magaalada Buuhoodle isagoo xilligan xoolaha iyo aad badan ka cabayaan iyagoo waliba ay ka jiraan abaaro iyo waliba biyo la'aan baasan magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn waxaan ugu horeyntiina wax ka weydiinay ceelka Riig ee magaalada Buuhoodle oo xilligan xoolaha iyo aad badan ay ka cabayaan maamulaha ceelka Riig ee magaalada Buuhoodle xanaan waxaad noo wartaa xaaladda ceelka Riig iyo waliba sida ay u shaqeeysan alxamdulillaah rabbil caalamiin xaaladdu way raxaysan xaaladda ay qoyska fiicantahay alxamdulillaah waxaan u shaqeynayaa iyo Allah la wixii biyo u baahan way yimaadaan haday tahay geel loo aare dameero inta way yimaadaan iyo dadba maxaa kale ka muuqda hortiina dadka soo dhawaada magaalada ceelku jiro 5 kiiloomitir taas karis marka baahida ka jirta meesha magaalada yaa kuna wadaan tolay meel hadda biyo ku jiraan ay sitiin xilliga qalabka gaabsan ceelku waa shaqeynaya alxamdulillaah rabbil caalamiin xanaan maadaama ceelka Riig 5 kiiloomitir hilaadii dhanka bari kaga beegan magaalada Buuhoodle biyo la'aan baasan ay ka jirto gudaha magaalada Buuhoodle iyo waliba deegaamada hoos yimaada sidoo kale waxaa jira dad reer miyiga oo ku xisaabtamay ceelka Riig maadaama biyo la'aan kale ka jirto gobolada dalka kale biyo loo gantaan ay jiraan sidee u kifaysan dadka bartamaha magaalada Buuhoodle iyo waliba deegaamada iyo dadka reer guuraaga waxaan u qaybinaa qaab shaqeed baan leenahay marka qolan qaabina for example geelasho kale waxa loo sameeyaa tani oo la qorasho kale oo leeyahay marka waxaan sameeynaa hameenkii kale waxaan waraabinaa booyadaha iyo wixii foosteyn magaalada ka soo aroora saacadaha dambe waxaan xidhnaa xoolaha aroortii waxaan waraabinaa dhaamanka iyo maxaa tolay sida ariga oo kale marka ay salaadii ka dambeeyaan witana ilaa iyo koodii barka turnimo ama labada baan xilligan hadda ku jirno kale waxaan waraabinaa geel xanaan maadaama ceelku uu yahay ceelka kaliya ee leenahay magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn dadka deegaanka ku dhaqan iyo kuwa gudaha ku nool aysan kifeen karin biyaha ka soo baxa balse ugu horeyntii maxay tahay biyaha ka soo baxa ceelka Riig kan wuxuu soo bandhigaa biyo gaaraya ilaa 600 oo foosto marka 600 oo foosto maadaama ay jiraan dad Soomaaliya oo iyagu aan meel kale biyahooda ka helin sidoo kale ay jiraan dad dan yar oo ku nool magaalada gudaheeda iyo waliba biyo la'aanta baasan ee gobolka ka jirta iyo waliba deegaamada kale hoos yimaada si inta baad u gaarsiisaan 600 foosto oo soo saaray ceelku maalin wixii uu calaf falba ku leeyahay uu ka qaataa qaar waa yimaadaan oo halkan dad biyo ka helaan ama xoolaha noqoto ama dad noqoto anaga laftigeeyagu weekly waxaan bixinaa 150 foosto oo ay ku bixiyo oo ugu talagalay tabarro ama marka magaalada qaxootiga ah ku yimid sida araareedo kale iyo dadka koonfur ka yimid kama artin xaastada marka dadka qof calafkiisa ka qaadaya